كواهبو شرقوها قوقان عيد عدواهدن عطوها قبيش وعليل دينو وروين كومانو عطوهي رميسي علنكاك واهبو شرقوها قوقان عيد عدواهدن عطوها قبيش وعليل دينو وروين كومانو عطوهي رميسي هيبقى الوحاد ولادعي دلكاك هويو هيبقى الوحاد ولادعي دلكاك هويو وانا لما هراني هنبلي وحقوقه وانا لما هراني caawa waxaanu martinahay khadra jibriil yuusuf waxaad caawa isweydiinaysaan khadra waayo halkay wax ku baratay halkay ku dhalatay maxay se caawa inoo wadaan su'aalaha oo dhan intay khadra u gudbin anaa isku dayay inaan ka jawaabo khadra waa gabadh dhalatay dhammaadkii qarnigii 20aad waa gabadh ku dhalatay gobolka saaxil magaalo madaxdiisa berbera laakiin waa gabadh ku barbaartay kuna kobocday caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waana gabadh ilaa imika ku nool khadra waxay wax ka barataa jaamacadda Hargeysa gaar ahaan kulliyadda economiga ama dhaqaalaha waana sanadkeedii ugu dambeeyay marka cidii hambal iyo oran karaysa imika u sii qadinto khadra waxaynu ka baranay khadra waxaynu hore uga soo baranay dhiirigelinta dardargelinta wacyigelinta iyo waanada dhalinyarada ay u hayso khadra waxay hore inoogu soo qabatay barnaamij la oran jiray rajada iyo rajalaawaha maadaama rajadii iyo rajalaawihi aynu soo bartay caawana waxay noo haysaa aragtida mustaqbal ee guusheena rajadii iyo rajalaawihiina wayna tustay aragtida mustaqbal ee guusheenana way noo haysaa waa qof markaa wax kasta inoo dhameeyay ka dhigantaa hadalka ku sii dheeraan maayo waayo waxa loo wada hamuun qabaa khadra hadalkeeda anu waa idinka dhex bixi idinkii khadra idinka dhex bixi haddaba waxaa jira markay barnaamijyadu bilaabmaan soo socod badan iyo hadal badan marka waxaynu isku taxaaluujinaa inaan intaa yarayno khadra waxaanu ka sugaynaa inay barnaamijka iyadu noo bilowdo rajada iyo rajalaawayaasha haddaynu soo aragna mustaqbalkeenna maanta aynu arkaynaa hadal saxa waa dhankeeda maqal wacanana waa dhankeena murtiruna waa dhankeeda ruuxuduna waa dhankeena tusmadu waa dhankeeda dhaqangalkuna waa dhankeena dhiirigelintu waa dhankeeda dhiirinaantuna waa dhankeena hadalna waa dhankeeda sacabkuna waa dhankeena labaad iyo mar saddexaadba waxay mahad u sugnaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala madasha tan isku keenay mar labaadka waxaan u mahadnaqayaa dhalinta aadka u cudoon ee igala soo qayb gashay barnaamijkani si ay ila wadaagaan aragtida iga dhex guuxaysa iyo fikirka aan idiin hayo mar labaad iyo mar saddexaadba waad mudan tihiin waana idiin mahad celinaya sidaad hore ogeedeen waxaynu ka soo hadalnay barnaamij la yidhaahdo rajadii rajalaawayaasha caawana waxaan ii hayaa barnaamij la yidhaahdo aragtida mustaqbalka guusheena ila arag oo ila dheho barnaamijkan waxa uu dhiirigelin dhabartaabasho iyo dhigjoojin u noqon doonaa in badan oo la nool silaca xiriirka iyo baylahoofka rajalaaneed ee gula nool geyiga Soomaaliyeed ahna walaalahayga ila dhashay isla markaasina aan wadaagnadii waxaan u istaagay inaan bulshadayda dhiirigeliyo khaasatan dhalinyarta aynu guda galno barnaamijka aragtida mustaqbal ee guusheena waa maxay aragtida mustaqbal ee guusheena aragti noocee ah ayaa inagu jirta dhamaanteen markaynu qof kasta oo inaga mida oo adigan kula hadlaya iyo adigan kula hadlaya dhamaanteen markaynu iska hadalno aragtideena mustaqbal ee guushu maxay tahay waxa weeyaan su'aashii runtii in badan oo idin kamida ka dhex guuxaysa waa maxay aragtida mustaqbal ee guusha ay khadra ka hadlaysaa caawa haddaba haddii aynu ka hadalno aragtida mustaqbal ee guusha waxa weeyaan qof kasta oo bini aadan ah waxa uu leeyahay mustaqbal waxaanu leeyahay rajo ku jirta isaga uu doonayo maalin maalimaha kamida in uu gaaro haddaba sideed u gaaraysaa se maxay tahay guul mise guul daro aragtidaada mustaqbal ma waxay ku wajahan tahay
in aad noqoto qof guuleysta mise waxay ku wajahantahay inaad noqotid qof guul daraysta runtii waxa weeyaan waxyaabaha inta badan aynu isweydiinayno haddaba ma ogtahay haddii aad aragti mustaqbal oo guul aad leedahay in ay kaa hor yaalaan caqabado aad u badan isla markaasina aad u baahantahay inaad adigu ka gudubto cid kale kama gudbayso waxa ka gudbaya waa inaga adigaa ka gudbaya anigaa ka gudbaya haw laakiin sideen uga gudbaynaa runtii inta badan qofka bini'aadanka ku noqoto carqalada waxa weeyaan sida uu uga gudbayo aragtidaasi mustaqbal ee guusha waayo carabkayga waan ka dhowrayaa in aan idhaahdo aragtida mustaqbal ee guul darrada markasta waxaynu jecelnahay in aynu fikirno sida togan waayo haddii aynu fikirno sida taban ama sida negative-ka ah waxay noqonaysaa inaynu noqono kuwo markasta ka baqda aragtidooda mustaqbal balse waxaynu leenahay aragti mustaqbal oo fiican waxay leenahay aragti mustaqbal oo aynu hubno in aynu ku guuleysanayno sideen ugu guuleysanaynaa waxaynu ku guuleysanaynaa markaynu waxyaabo badan oo nolosheena ina hor taagan ka dhalinyar ahaan aynu ka gudubno kow cabsida ma ogtahay markaad doonaysid in aad guuleysatid in ay kaa hor taagan yihiin waxyaabo aad u waaweyn isla markaasina feedho waaweyn leh yaase ka gudba waxa ka gudba qof u aalameeteeya jiilna u gala isla markaasina u diyaar garooba sida uu ula dagaalami lahaa carqaladaasi laakiin kama gudbo qof maalinta uu arko in ay wax weyne ag taagan yihiin guushiisa uu dhabarka usii jeediyo qofkaasi ma guuleysto oo waxa uu noqdaa qof ka baqda carqaladaha nolosha ee hor taagan waxaanu noqdaa qof markasta cabsi ku jirta sideen uga gudubnaa cabsidaynu ugu jirta dhalinyaro sideen uga gudubnaa carqaladaha intan laaleeg ee ka hor taagan in aynu noqono kuwo guuleysta runtii waxa weeyaan waxyaabo u baahan in aynu isweydiino isla markaasina aynu uga jawaabno si togan ama si positive ah sideen uga jawaabi karaynaa waxaynu uga jawaabi karaynaa cabsi baa ka hor taagan waxa kaa hor taagan wax aad u weyn oo isla markaasina adiga kaa feedho weyn adiga kaa awood badan laakiin goormaad ka awood badanaysaa marka aad ka cabsan weydo ee indhaha aad u saarto san aana dhabarka usii jeedin qodobka labaad aan is odhan karo qofka bini'aadanka uu ka hor taagan yahay in uu guuleysto ama uu gaadho aragtida mustaqbale oo muuqata isla markaasina meel fog uga bildhaanaysa waxaan odhan karaa waxyaabaha ugu waaweyn marka cabsida laga imaado ee ka hor taagan waxa weeyaan inuu qofku culays dareemayo markaad tiraahdeed guuleyso oo maanta meel gaadh maanta carqaladan ka hor taagan ka gudub adduunyadu dhamays maaha laakiin maalinba carqalada kaa hor timaada waa inaad ku soo salaantaa weji fiican isla markaas inaad ka gudubtaa haddaba culayskaasi intaa leeg ma ogtahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu inagu yiri fa inna maca alcisri yusra inna maca alcisri yusra laba jeer buu inoo sheegay culays kasta fudayd baa ka dambeeya taasi ma aha inay culayska intuu iska oolo aad adigu si degdega fudayd iskugu bedelaya haddii aanu culays jirin fudayd mu jiray haddii aanu culays iyo carqalad jirinna guulimay jirteen runtii marka aynu doonayno inaynu guuleysano waa inaynu ka gudubnaa waxaasi oo dhan waa inaynu culayska intaa leeg ee ilaahay subxaana wa tacaala inoogu sheegay laba jeer uu inoogu yidhi fa inna maca alcisri yusra inna maca alcisri yusra waa inaynu ka gudubnaa isla markaasina inagoo adeegsanayna hadalka ilaahay aynu idhaahno waad ka gudbi karaysaa culayska inta leeg waa inaad sida ugu dhaqsaha badan leh ugu beddeshaa fudayd waxaa jira waxyaabo badan oo qofka bini'aadanka ama dhalinyarta waqtiga dhalinyarnimadu waa waqtiga aynu runtii ku jirno waqtiga ugu fiican ee noloshaada si togan uga faa'iidaysan karto ama si taban ood markaasi noqon doonto qof aan ku guuleysan haddii aad si togan uga faa'iidaysatana aad noqon doonto qof ku guuleysta isla markaasi ka gudba noloshana u dhabar adayga waayo noloshu waxay leedahay carqaladaha aynu soo sheegnay iyo kuwo ka badan oo aad u badan haddaba ma ogtahay marka aynu doonayno inaynu aragti mustaqbal gaadhno inay u baahan tahay adayg badan tusaale ayaan kusoo qaadaya ninka la yidhaahdo ninka islaamka allah naxariista ayaan tolaa dhintay maxamed cali kaale ayaa mar telefishin laga wareysanay la weydiiyey kartida iyo dadaalka inta sideed ku gaadhay wuxuu yidhi waxaan la yimid karti badan dadaal badan aan lahaa laakiin
haddii aanan lahayn malaysi aad u weyn oo mustaqbalkayga ku wajahan maanta maan guulaysteen riyo haddaanad lahayn mala awaal haddii aanad malaysi lahayn way adag tahay inaad guulaysato haddii aynu nahay dhalinyarta sidee aynu uga faa'iidaysanaa waqtigeena si aynu uga dhabayno aragtideena mustaqbal ee inagu soo food leh sidaynu waqti ugu siinaa in aynu ka fikirno isla markaasina aynu dhigano waqti ama goor ama waqti soo socda in aynu gaari doono aragtida mustaqbal ee inoo yaal intee in leeg bay nagu qaadataa in aynu ka fikirno aragtideena mustaqbal mise waxay kugu qaadataa maalinku ilaahay keenaba inaad wajiga cusub ee kuu beriyay aad la kulanto isagoo aanad waxba qabsan fikir kale kana fikirin birinta kugu soo food leh say noqon doonto ayuu kugu dhaafaa isweydii su'aasha guul doonayaal ayaynu nahay haynu ugu fogaato taargetkeena ama bartilmaameedkeena ah inaynu tagno jannada inaynu noqono maadaamaaynu islaam nahay kuwa ilaahay raali ka noqdo rasuulkoodna u shafeeco qaado laakiin sidaynu ku gaari karaynaa guushan aynu doonaynaa halkay ka imanaysaa guusha aynu doonaynaa ma waxa ay imanaysaa intay albaabka inagu soo qaraacdo fursaddu maalin bay kugu soo qaraacdaa maalintaasi haddii aad ka furi weydo isla markaas inaad ka faa'iidaysan weydo dib ayay kaaga noqotaa noloshaaduna kuguma soo noqonayso fursadda hal marku soo martay ogow haddii aad ka faa'iidaysatid fursado kale ayay kuu soo tilmaamaysaa oo waxay odhanaysaa waa qof si fiican kuu soo dhaweynaya tusaale haddaan adigu maanta anigu kuu imaado oon kaala kulmo weji xun heblaayo beri kuuma imanayso waayo qofkaa tahay baa la bartay fursaduhuna waa sidaasi oo kale maanta haddii ay ku dhaafaan beri kuuguma soo noqonayaan waqtigaaga waa inaad ka faa'iidaysataa si aynu gaadhno aragtideena mustaqbal ee inagu soo food leh ninka la yidhaahdo Ibraahim Fiqi waa ninka ugu badan ee bugaagtiisa akhristo isla markaasina aan ku dhiirado anigana kor ii qaado aan ku daydo sidoo carqaladaha uga gudbay inaan uga gudbo dad badan oo ila midana ay taasi sameeyaan idinkana aan jecelahay inaad dadka muslimka ah ee adduunka haldoorka ah aynu ku dayano waxa uu aad u jeclaa inuu noqdo manager hotel ama maamule hotel carqalad intee leeg buu kala kulmay laga yaabo inuu badankiina akhrideen taariikhdiisa carqaladuu kala kulmay waxaa ka mid ahaa in dadka ku xeerani ay ku wiirsan jireen aanay odhan jireen kama dhabayn kartid riyadaada hiwaayadaada kama rumayn kartid oo waxaa tahay qof aan ka rumayn karin waxa aad ku riyoonaysa intaad iska daysid shaqo kale magacaygu waa Yaala Maxamed Cumar waxaan ka socdaa naadiga Halkaraan ee ku yaala xarunta gobolka Togdheer magaalada madaxda Burco caasimadda labaad ee geeyiga Somaliland naadigaas waa naari dhiirigeliya run ahaantii halyeeyada soo kacaya ee qarankani leeyahay ee Somaliland waa naadi ku dhiirada inuu soo saaro hawlkarro aqoon-yahano hal abuuro iyo dad taariikhyahano ah waa naadi ka yagleelan magaalada Burco in badan isbedel badan ka sameeyay xarunta gobolka Togdheer ee magaalada madaxda Burco salaam baan uga sidaa Khadra Jibriil Yuusuf gudoomiyaha xigeenka iyo xubnaha gudida ee naadigaas inta dabadeed waxaan jecelahay inaan si gaar ah horta ugu mahad celiyo gudoomiyaha jaamacadda Togdheer International University Mudan Ali Cashuur oo hawlo shaqo u joogay magaalada Hargeysa kulamo gooni-gooniyana lahaa wasaaradda waxbarashada jaaniskaas oo inoo soo siiyay caawa guud ahaanteen waynu uga mahad celinaynaa Mudan Ali Cashuur maasanta inta dabadeed malacaawa waxaa marti loo yahay walaasheena Khadra Jibriil Yuusuf bal haddaan ka dhex galo Soomaalidu aragti wax ku qiimaysaa waa qabiil waa deegaan waa isgarasho inantaas ma naqaano magaceeda san garanayaa haddana se intaas oo kiiloomitir waxaan u soo jaray inaan caawa la wadaago xalfadan iyada teeda kale dhiirigelintu waa qayb ka mid ah guusha aadamuhu gaadhigu shidaal kama maarmo qofka bini'aadamkuna kama maarmo in la dhiirigeliyo laakiin Soomaalidu ama haddaynu nahay bulshada Soomaaliyeed kama maarano run ahaantii qofina markastaba qalbi jabiya
qof baa laga yaabaa inaad han leedahay tusaale ahaan diyaarad baan samaynayaa baan kula anigoo ayaalla maxamed cumar qof kasta wuxuu kugu jawaabayaa Soomaaliya wad waalanta qofka odhanaya hore u soco waa yaryahay hadduu kulaadana waa nif iyo daadir marka inaga nusunaheena iyo qaab nololeedkeena bulsho ayaa waxay noqotay inaan qofka dhiirigelino ama aynu qabigiisa jabino qofkan dhiirigeliya waa qof nolosha wax ka qiimeyn karaya laakiin Soomaalidu say u dhantahay waa waalan yahay bulshadana la joogta war waxaan la fadhiisano inaan lagu yaabin waa kelmadda ugu horeysa lagu oranayo walaashay waxaan leenahay khataraay hore u soco aan ku dhiirigelinaynaa 100% naadiga halkaraan si u dhan yahayna dhiirigelin iyo walaaltinimo xad ah ayay ku soo dirayaan run ahaantii fi Cabdullaahi Ahmed waxaan ahay ka tirsanahay dalada Nagrif oo bishii dhaweyd halkan kulan ku qabatay waxaan aad ugu damqanaa anagu dalada Nagrif ahaan caruurta darbijiifka muddo 4 sano level secondary baan anigu wali ku jiraa laakiin anigoo level primary ku jira waxaan bilaabay caruurtayga yaryar ee darbijiifka inaan caawiyo garab istaago aniga tiimka aan ka mid ahay waxaan inta badan waqtigayaga firaaqada aan siinaa caruurta darbijiifka sidaan dareenkooda iyo ogaan lahayn xaaladda ay ku sugayeen waxa ilaahay xamdigiya inaan in ka badan 100 caruur darbijiifa aan saaxiib lahay ma hawaysto ma jecli inaan la saaxiibo ina wasiir ina taajir waxaan jecelahay tayga yar ee darbijiifta ee suuqa joogta ee dhibaataysan inaan la saaxiibo oo hogay hooyaday ii iibisay aan kula ay la xirato oo kula ay kula noolaato ma awoodno dalad Nagrif ahaan iyo aniga shakhsi ahaan inaan uga soo bixiyo gurigayga keeno waayo haddii aan awoodi lahaa 10,000 oo caruur oo suuqa jooga ayaan u nixi lahaa oo aan jeclaan lahayn inay la noolaadaan khadar waxay la timiday madashan iyada ah wixii ka dhex guuxayay run ahaantii innaga waa kan qof walba halkan ku nool ama qof walba halkan fadhiyan ka wada run ahaantii kursi baad ku fadhidaa waa dhageysanaysaa qof walba waxba ka dhex guuxaya waa fikirkaaga in loo baahan yahay maanad war u haynin war goormaad kici doontaa war goormaad ma taqaanaa bulsho badan wax ka bedeli doontaa sidaan hore u maqlayay waxa jirtay in kastoo dibadda taagnaa oonan hadalkaas si fiican u dhooxin balse laakiin waxyaabihii aan maqlay waxa ka mid ahayd in ma taqaanaa yacni bulshadeenu ay ku hamiyeyso de in ma taqaanaa ka soo qaad for example Mareykan lottery baa soo baxay habeen dhawood la lahaa war lottery-ga ku wada cararaysaan Donald Trump aad u cararaysaan de nin yar cadaan halka dhisto labada cimaaradood meesha taagan dhistay aduma tan dhisan garan weeyday waayaan daran kale waxaan ka mid ah inta ugu indhadar aniga isiri soo qaray adana ayaan darada inta ugu badan waxaan arkayaa mas'uulaan hor istaagayaan la ya adeer dad baa dhibaataysan oo igu oranaya Bristol State ay kaale Bristol secretary-diisu ku oranaya inanta hay soo dayni war meel ilaahay bay igu dhaarshay ayaan dara ahayn kalama hadlay dantaydi oo maliha anigu shaqaysi malihideer hebel baanahay ma oranayo lacag baan kaaga baahanay shaxaab baan kaaga baahanay mas'uuliyiinta intaas ay ka orada laakiin waxaan leeyahay caruur yar aynu caawino oo dhibaataysan oo waxaan ku daroodo laga iibinayo oo inagu ay sii dilayno farmasiyadeena iyo mas'uuliyiinta sabab yihiin oo ilmo yar loo xidhay 3,000 oo badaroo la ka waran waxa uu xidhay kuwan kaalmaha haysta isagu ma eegayo 3,000 baa u muuqda laakiin ilmaha 3,000 badaroo loo xidhay beerkiisa iyo caafimaadkiisa saliskiisa siday noqonayaan hadalka ku dheeraan maayo waxaan leeyahay caruur yar bay sugaysaa waxba yeynaan guudka u xidhan waxba yeynaan u ordino oo nigatiga u geejisanin inaynu kuraasi qabno intay caruurtan sidaay salaam calaykum indhahaygu waxay qabanayaan da'yar iga suugaan iyo midhabo fiican indhahaygu waxay qabanayaan da'yar iga aqoon badan indhahaygu waxay qabanayaan dhalinyar aniga intan doono iga aqoon iyo maskaxba badan runtii hadalka inaan ku dheeraada ma jecli marka hore waan xambaliyeynayaa walaashay Khadra Jibriil Yuusuf waxaan leeyahay dadaalka halka ka sii wad mar labaadka waxaan leenahay inuu kaga dayno walaashay Khadra Jibriil barnaamijyada quruxda badan ee ay noo soo bandhigayso marba marka ka dambaysa inagina dhiirigelin bay noo tahay kulley xagga hadalkan ku fiicanayo waxaan iska hay dadka hadalka ku ganacsada laakiin suugaanta kuma fiicniyo dadka qasbaan ka mid ah iyada
laakiin haddii la odhan lahaa hadal oo aan magacaa weyn laygu yeedhi waan iska hadli lahaa sidii walaashay Khadra inkastoo aan dhiirigeliye ahayn oo aanay qurux badnayn inuu ku qabsado title-ka waayo saan soo taaganay maad aragtaa waan dhaqdhaqaaqi lahaa haddii dhiirigeliye ahay ma hore waxaan ogahay haddaan magaalka ka dhaqaaqo halkan istaagay hadda taagnaanayo marka aan iska qaylo dheer ma hore idin sheegay hadalkan ku ganacsadaa marka waad maadsantahay walaashay Khadra aniga ma aha wax xaqan cunahan u maleynaya iyo mikrofoonka midna qaladku ma aha anigu suugaan badan ma lihi 3 iyo 4 mar baa baraha bulshada dhex wareega oo intaana qasbay waliba ilaa xadan qasbay afartan ruubana dadka ugu soo celceliyaa waxa cusubna waa la yara baqaayo waxaan isiraahdaa haddaad soo saarto bilaa lagu la yaabaaba marka xagga dabaan u sii yara dhiga waan gudageli doonaa kolay xagga jacaylka igu tiriyana waxay yiraahdeen qaar badan ma markay soo kacay u lahaa tii guhaad tiri war guhaad meesha fadhiyaayo dhagaay kaga badatay mid kale ma idin tiriyaa ma dileeyahay ayaan loo reer birciina uu fadhiyaa moogtay guhaanaha daree bircu ahaa sidatan anigoo dhalaan jeclaa gabi dhawaaqii iyo dugsigaba anoon dhigan ayaan dhiiranaan jiray waan u dhagan nuglaa gabay inaan dhuuxo waligay iyo kaygu dhaxal awoobuu ahaa layma sii dhigine doodaan sidiisii ayaan dhumuc u yeelaaye balse dhowr kal dabadeed hadda la igu soo dhigaye qalinkana dhankaan kaga qabtay dhuuxa hadalkayga dadku way dhaliilaan ninkii dhiibsan ee wacane waanay soo dhaweeyaan ninkii laalay dhaqankii iyo dharaataad wax noqotay xaqiiq kugu dhadhabayaane sacabaan dhab ka ahayn ayay dhowda ku hayaane geesi iyo dhabeel baad tihiyo ruux dhammaystirane dhaqaalaha markaad haysabay kula dhaqaaqaane haddii uu dhammaadana cilaa lagugu dhaafaaye ilaahay baa marka hore mahad leh alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka labaad waxaa soomaalidu ay tidhaahdaa hadal dabadii iyo hambe dabadiid iyo hayaan dabadii midna lama maro ama lama qaato marka waxaan ka codsanayaa runtii de waa hadal dabadii waayo waxaa la yidhaha hadal dabadii intaasoo qof oo aftahan hadday kaa horreeyaan waxba kumay reebin hambe dabadeedna yaa garanayaa haddii dee aad hamba soo qaadatana oo la yaqaana soo maha laf yar iyo maxaa la yidhahdaa xabab yar iyo waxbaa ku jira hayaan dabadeedna dee markay reeru guuraan inta badan waxaa jira wax la reer guura raac soo maaha marka runtii isagana bahalaha ku cuna baa la yidhi waxaan ka afeefanayaa runtii waxaan ka afeefanayaa oo aan idinka codsanay mar haddii mikrofoonka igu soo dhaweysteen meel fogna aan ka imid in si fiican la dhegeysto intaasi waa ta labaad waxaan runtii hambaliyo iyo bogaadin iyo dhiirigelin baan siinayaa walaashay marna ah inantaan adeerka u ahay kole bidaar baan leeyahay oo waxa la soconayaa yare odaygu Khadra Jibriil Yuusuf oo runtii saameyn ku yeelatay intii aan halkan fadhiyay maskaxdayda ma sheegayo waxaan ka fakarayay laakiin in yar oo ka mid ah hadalkayga waan ku xusi doonaa sidoo kale ayaa la iga horreeyay oo ma jeclayn marti ka soo qayb gashan inaan noqdo mooyaane in la igu dhaho gudoomiye jaamacadda Togdheer. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa salaamaya habeen wanaagsan. Ugu horreyn waxaynu u mahad celinaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala goobta isugu keenay inagoo caafimaad iyo nabad qabna isla markaana ugu talagalay inaynu nolosha wax ka mid ah kala faa'iideysano caafimaadka iyo cisiga iyo nabadda iyo dhammaan waxaynu ku joogno dhan waxa weeye nimcada Ilaahayna siiyey dadka intaas oo dhan qeyrkood la Ilaahay subxaanahu wa tacaala gudub gaara kama galin laakiin waa hibo Ilaahay baa iska keensiiyay nagu arji umeedaan qoran wax gaarana isku mid yihiin laakiin Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku gartay marka isaga inuu mahad celinaa marka hore alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka xiga waxaynu u hambalyeynaa wala mahad celinaa walaashay Khadra bilaadanku marxaladda ugu sarreyso gaadho waxa la yiraahdaa saalix waa inuu soo wanaagsanaado darajo waxa jirta ka sii sarreyso in yar gaadho oo waxa la yiraahdaa muslix dareen waxa gala intan kugu jirto umada gaarsi dareenkaas waxa hor istaaga
boqolaal shay cabsi baa ka mid ah warwar baa ka mid ah su-aasha ugu adag baa hor timaado maxaa kaa galay su-aashaad kama jawaabi kari weydo oo adiga ummadda maxaa kaa galay shaqadaada qabso in yar baa kasoo gudubta halkaas oo maxaa kaa galayda ka jawaabta intaas wixii dareen ku jira ama ummadda wax u qabo ama erey gaadhsiiya bay usoo gudbaan aslan bana waxaa la dhaha qofka muslimkaa 3 shaqaa u taalla waa tacliim iyo tadbiiq iyo tabliiq waxay dhahdaan waa to learn to apply and to transmit marka hore waa inaad wax barataa adigu markaad wax baratana aad dabaqdo waa halka innaga inoogu adag haddaynu nahay soomaalida marka dambe dabaqdana transmit ummadda gaadhsiiso fariintaada isa in baa u baahan oon haysanay inaad ummadda gaadhsiiso halka inoogu adagi gaadhsiinta waynu ku fiicanno tiro qaara wax inoo warramo waynu helnaa waxna waynu barannaa laakiin ma dabaqno malaysigu riyadu intaba waxaynu soo sheegnay inay hoos imanayaan aragtida mustaqbalka bulshada laakiin aqoonta aad leedahay iyo kartida adiga kugu jirta iyo fikirka adiga kaaga buuxayaan ma isku mid ba haddii aad baratid cilmi badan isla markaas inaad cilmigaaga doonaysid inaad kaga shaqeyso qaar ka mid ah xafiisyada wadankaaga ka jira adiga iyo riyada adiga kugu jirta ee la dhalatay qof kasta inaga mid ah riyada la dhashay Soomaha riyada adigu aad la dhalatay maxay tahay ma waxa weeyaan riyada aad adigu la dhalatay inaad shaqo heshid isla markaasina aad bartilmaameedkaaga halkaasi ku eekaado mise waxa weeyaan in aad shaqada aad helaysid laftarkeedu adiga ka soo burqanto isla marka adiga ka bilaabanto mise waa inaynu CV qorno deetana aynu codsiyo inta badan sameeyno deetana ay halkaasi ku dhamaato aragtideena mustaqbal ee guusha marka waqtigii iyo daadina ay nagu soo gasho ay noqono qaar isdhiibay oo nolosha la hogaamiyo mise waxaad noqon doontaa qof adigu hogaamiya oo hogaamiyo u doorano hogaamiyo maaha kii siyaasadda marka hogaamiye la soo hadal qaado waxaan xasuusanahay inaynu madaxweyne noqon laakiin adigu hogaami naftaada bulshadaadana hogaami maaha hogaamintu tayn sheegayno marka aad naftaada hogaamisid una hogaamisid bartilmaameedka adiga ku yaala waxaad gaadhaysaa hadafkaaga nololeed ee ahaa inaad ka gaadhid bartilmaameedka guushaada waxseed ku ursamata arligaygo irbaka marhidi karab aqoon yare